maxaad ka taqaanaa magaalo buureedka Kordofan ee dalka Iran? Erey ahaan magaca magaalada ee Kordofan waxay afka Iiraaniga ku noqonaysaa magaaladii xabaalqoodayaasha dhagxaanta. Waa muuqaal aan la rumaysan karin marka meel fog laga joogo in guryo iyo meel la degan yahay ay yihiin. magaalada Kordofan waxay ku taalaa cirifka ugu shisheeya waqooyi galbeed ee dalka Iran. magaaladan oo buur dhagaxeed salaxyo waaweyn laga qoday ka samaysan waxay ka mid tahay goobaha ugu la yaabka badan dunida, gaar ahaan marka laga hadlayo dhismaha iyo xadaaradii dadkii hore. erey ahaan magaca magaalada ee Kordofan waxay afka Iiraaniga ku noqonaysaa magaaladii xabaalqoodayaasha dhagxaanta. waa muuqaal aan la rumaysan karin marka meel fog laga joogo in guryo iyo meel la degan yahay ay yihiin. waxaana la moodaa sidii boholo iyo godad bahalogaleen ah oo dudumooyin sidooda u dhisan, laakiin marka loo dhowaado ayaa la garan karaa in guryo yihiin oo la degan yahay. Kordofan oo ka mid ah waqtigan goobaha loo dalxiiska tago ee taariikhiga ah ee dalka Iiraan ku yaala, waxaa sidii loo degay iyo sababtii ku kaliftay dadkii qoday buurahani leedahay taariikh dheer oo ilaa 6,000 sannadood ku dhow. sida taariikhda magaalo buureedan lagu hayo, dadkii hore ugu dhaqnaan jiray deegaankaas ayaa waxaa weerar xoog leh kusoo qaaday xoogii Mongooliyiinta ama Tataarka, kuwaasoo dunida inteeda badan ku qabsaday gulufkoodii weynaa. dadka reer Kordofan ayaa guryo ka qotay dhagxaanta salaxyada ah ee buuraha ku dherersan jiidaas, halkaas oo ay ka hirgeliyeen magaalo difaac ahaan amnigeedu sugan yahay, isla markaana u adkeysan karta dabeecadda iyo cimilada qalafsan ee deegaankaas ka jirta. magaca Kordofan waa afka Farisiga, macnihiisu noqonayo dhulkii xafaarinta godadka ayaa inkasta oo ay sheeda dudumooyinka aboor ku dhisto oo kale uga eg tahay. marka gudaha loo galo ka yaabinaysa siday dhagxaantaas la qoday uga samaysteen guryaha quruxda badan ee naqshadoodu sareyso. inkasta oo Mongooliyiintii jabeen oo aanay jirin cabsidoodii xilligii ay gulufka iyo dagaalka ku qabsanayeen dunida inteeda badanna ay ka nabadgaleen, haddana dadka reer Kordofan ilaa weli waa kuwa ku nool guryahay dhagxaanta buuraha ka qoteen ee cabsidu ku kaliftay. guri kasta oo ku yaala magaalo buureedan ku taala dalka Iiraan ee Kordofan waxa uu leeyahay naqshad iyo hab loo dhisay oo aad kaaga yaabinaya. qol kastana waxa uu dhammaystiran waxyaabaha asaasiga u ah nolosha aadamiga. naqshadda ay u sameeyeen waa tan ka wada yaabisay dunida oo dhan, sababtoo ah waxaa dhismahooda la moodaa in sidii waqtigan casriga ah waxa loo dhisto loo dejiyey. dhammaantood guryaha ku yaala buurtani waxay u jeedaan dhinaca bari oo ah jihada keliya ee aanay dabeeshu ka soo dhicin marka la joogo buurahan. haddaba waqtigan oo ay dhammaadeen dadkii xafaarinta ahaa ee qoday buurahan guryahana ka samaysan jiray ayaa ilaa iyo weli la degan yahay oo guryo cusub laga samaystaa. marka la wareysto dadka ku nool magaaladani waxay kuu sheegayaan in qodista halkii qol ama guri ee buurahani ku hirgalayo 4 sannadood oo la jafo dhagxaanta salaxa ah. magaaladan waxaa ku yaala 190 guri, waxaana ku nool 1,000 iyo dheeraad qof. mar kasta oo aan guri cusub dhisanayno ama aan mid hore u jiray kordhinayno, waxaanu adeegsanaa qaabkii awoowayaashay wax u dhisan jireen, oo waxaanu qodnaa dhagxaanta salaxa ah anagoo isticmaalayna madaraqyo, sabarado iyo waxyaabo kale oo biro ah. dhismo kasta waxa uu u baahan yahay in la raaco qaab injineerin xasaasi ah, oo waxaa loo sahminayaa inaan dhagaxu noqon mid dumaya, in habka loo qoriyo quruxda iyo naqshadda la jaanqaado, iyo in laga sameeyo guri qoys oo lagu noolaan karo. inkasta oo 10 sannadood ka soo wareegtay waqtigii la aasaasay magaalo buureedan Kordofan, haddana weli kama dhammaan dhaqankii sababta u ahaa dhismaheeda ee cabsida iyo feejignaanta ku dhisnaa. markasta oo aad booqato deegaankan waxaa dadka ku dhaqani kula dhaqmayaan sidii qof aanay weligood hore u arag, waxaana caado u leeyihiin halkudhegyo iyo naaneysyo ay u bixiyaan dadka soo booqda
haddana ma aha dad soo dhoweyn xun oo xirxiran. waxaa soo degay ganacsato badan, dalxiisayaashuna way ku soo bateen oo sii kordhiyeen cabsidii dadka reer Kondofan ka qabeen in lagu soo ciriiriyo dhulkooda. dibadda hore ee magaaladan waxaa durba laga hirgeliyey hoteel dalxiis kaasoo dhisme ahaan wejiga hore loogu ekeysiiyey sida guryaha dhagxaanta salaxyada ka dhisan ee reer Kondofan, laakiin gudihiisa ka duwan yahay oo internet, telefishinno iyo nolosha casriga ah ee dunida ka jirto. dalxiisayaashu waxay halkan u yimaadaan si ay noo daawadaan, laakiin uma yimaadaan inay nolosha nagala qayb qaataan oo hoos noo ogaadaan. sidaa waxaa ku odhanay qof kasta oo reer Kondofan ah. isku soo wada duubo, magaalada Kondofan waa mid gudaha dalka Iiraan laga wada yaqaano, taariikhdeeduna ku weyn tahay, laakiin muuqaal ahaan waqtigan uga dhigan goob dalxiiseed loo tamashl tago.